Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dalka Jarmalka ayaynu dul istaagi doonaa maanta. Dalka Jarmalka waxa uu ka kooban yahay 16 gobol waxaana u dhacaa bartamaha qaaradda Yurub. Wadanka waqti xaadirkan ugu dhaqaalaha badan dalalka la isku yiraahdo midowga Yurub. Caasimada dalka Jarmalku waa Berlin waxaana ku nool dad gaaraya ilaa 4 milyan oo qof. Waana magaalada ugu dadka badan leh dalka Jarmalka. haweeneyda dalkan muddo 20 sano ka badan ka tirinaysay waxaa la yiraahdaa magaceeda Angela Merkel waana ra'iisul wasaaraha ugu muddada dheer leh dalka Jarmalka soo mara waana haweeneyda dhaqaalaha Jarmalka kor u qaaday. dalka Jarmalku waxa uu leeyahay 16 gobol. gobolka ugu dadka badan la magaciisa waxaa la yiraahdaa Nordrhein-Westfalen oo ay caasimadiisu tahay Düsseldorf. gobolkan waxaa ku nool dad gaaraya 17 milyan oo qof. wadanka Jarmalku waxa uu daris leeyahay 9 dawladood oo adduunida caanka ah. dalka Jarmalku waxa uu leeyahay wabiyada ugu dhaadheer qaaradda Yurub iyo waliba badda ku taalla waqooyiga dalka Jarmalka. Jarmalku waxa uu dhaqaale ahaan ku tiirsan yahay warshadaha iyo xagga caafimaadka oo horumar aad u sareysa ka gaaray. Jarmalku waxa uu leeyahay xagga isboortiga naadiyo waaweyn oo caan ah sida Dortmund, Schalke iyo Bayern Munchen iyo waliba Leverkusen oo dhammaantoodba dunida caanka ah. baabuurta ugu tayada wanaagsan uguna qiimaha sareeya dunida guudkeeda aynu ku noolahay waxaa soo saaray wadanka Jarmalka. waxyaabaha ay dadka Jarmalku caadada ka dhigteen caankan ay ku yihiin waxaa ka mid ah ballanta. haddii aanad lahayn ruux xijiya ama oofiyo ballanta waxay ku aqoonsanayaan inaad tahay qof nolosha ka dhacay. dalka Jarmalka waxaa soo maray nin aad dunida caan uga ahaa magaciisuna uu ahaa Adolf Hitler waxaana uu ahaa mid ka mid ah dadka dunida taariikhda lagu xusay. dalka Jarmalka waxaa lagu jabiyay dagaalkii labaad ee dunida waxaana maamulka dalka la wareegay wadamada Ingiriiska, Ruushka iyo Mareykanka iyo Faransiiska waxaanay dalka u qaybiyeen laba qaybood oo loo kala yaqaano Jarmalkii galbeed iyo kii bari.